wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa sheegay in xaaladda nabadgelyo ee deegaanka Qararo hadda sugan tahay waxaan inta raaciyay in la dhaariyay min 15 xubnood oo kala matalayay labada beelood ee halkaasi shaqaaqadu ku dhaxmartay loona saaray 35 xubnood oo gudiya oo dhaxgali doona garta dhinacyadaasi Waran Cadde oo ka hadlayay tirada dhimashada iyo dhaawaca halka lagu soo tiro koobay ayaa sheegay in aanay dhimashadu dhaafin hal qof halka hal askari halka ku dhaawacmay bulshada halkan aan ugu nimid hadeetay salaadiin iyo hadeetay dadka deegaanka iyo hadeetay dadkii Hargeysa iyo aynaba iyo meel walba ka soo gulmaday marka horena waxaan jeclahay halkan aan uga tacsiyeeyo qoyskii iyo muxuu ahay cidii uu ka baxay marxuumkaana ku dhintay wixii dhacway Ilaahay muxuu ahay u sahlay in lagu bariyaa talabaad runtii waxaan ka mahad celinayaa ciidamada qaranka iyo booliiska oo runtii qayb wax ka qaatay waxaan runtii halkan uga mahad celinayaa oo kale gudoomiyaha gobolka Saraar gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo madaxda ciidamada qaranka iyo booliiska ee halkan igu wehelinayay waftiga odayaashii ka soo qayb galay arrinta tan waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta wax badan dhacaya jirin meedkiina imka la isla gartay in la aaso reerihiina hawsha wixii ka dambeeyay sidii loogu kala samri lahaa loo ballamay barito sidaan aan jeclahay insha Allah inay khaatimo wanaagsan ku soo khaatimeyso arrintaas way dadkan waa dad sida la sheegay isku deegaan oo wada degan meesha weeye dad oo karaysan maaha marka Ilaahay waxaan barayaa in Ilaahay nabadgelyada uu adkeeyo muxuu ahaayay nabadoodana ay adkeystaan tii aad iyo aad raya odayaashii labada dhinac ka soo qayb galay sida ay u fududeeyeen iyo sida ay noogu soo dhaweeyeen walba wax laga dhaariyay 15 qof inay nabadda ilaaliyaan arrintaana wixii ka dambeeyay guddi baan u saarnay 35 nin oo iyagu wada kala gura labada beelood wixii isugu dhiman insha Allahna waxaan rajaynaynaa si khayr leh ku dhamaato waxa iyaguna halka lagu dhaariyay odayaasha iyo waxgaradka labada beelood inay xabadda joojiyaan inta arrinka la soo afjari doono inta arrinka lagu jiro inaan xabad joojin sameynayno oo xabadda joojinayno nabadgelyana ka shaqeynayno ayaa nagu wallahaya ونقول بالله ونقول تالله waxa iyaguna deegaamadaasi gaadhay sidii ay ugu gurman lahaayeen nabadgelyada una damin lahaayeen fitnada halka ka abuurantay ciidamada ammaanka Soomaaliland maamulka gobolada Saraar iyo Togdheer madax dhaqameedo waxgarad maamulka dawladda hoose ee degmada Burco oo horkacayay duqa degmada Burco Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf ina Muraad iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xasan Xoday qaar kamid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Burco degmada Qararo oo ka tirsan gobolka Saraar ayaa la sheegay inay isku afdhaafeen qaar kamid ah beelaha isla deegaankaasi baraago halka laga qodayay kadibna ay xaaladdu gaadhay in la israsaaseeyo colaadaha noocan oo kala ayaa badanaaba ka dhasha dhulka miyiga ah ee la kala sheegto la isuna xoog sheegto inkastoo dadka degan Soomaaliland uu yar yahay marka loo eego dhulka ballaadhan ee ay haystaan ayaa waxa la isweydiin karaa hadaba maxaa sababa in la isku laayo dhulkaasi ama waa maxay siyaasadda uga degan xukuumadda dalka maamulaysa hadda si aanay u soo noqnoqon falalka noocan oo kala